qisadeena waxay ku saabsan tahay dulmiga iyo dhibaatadiisa. nin dulmiyay gabar jeclaatay, nafteeda ku aamintay, xaas u noqotay, laakiin cuquubada ilaahay uu ku tusay adduunyo intan aakhira la gaarin. ninkaas gabadhaas dulmiyay muxuu ku sameeyey? cuquubada ku dhacdayna maxay tahay؟ قصص القصص لعلهم يتفكرون. nin xoolo leh, sigaar cabo, khamr cabo, dibadda joogo oo kaxayn karo. Xusaasantay gabar aad u maseer badneed, aad u kululeed, laakiin caqli badneed. maseerkaas iyo xanaankaas badan ma kontrooli doontaa mise way la guban doontaa. Sidoo waxay ku saabsan tahay nin u diiday xaaskiisa, hooyadeeda iyo aabaheeda. alhamdulillah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah. walaalahan ilaahay dartiisu jecel meel adduunkaad ka joogtaan. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. jimco walba iyo qiso cusub. walaalayaal, qisadeena maanta waa qiso dhab xanuun leh, ku saabsan dulmiga iyo dhibaatadiisa. waxaa jiri jiray nin Soomaali guursaday gabar wanaagsan, Soomaaliyeed diin iyo akhlaaqba leh. ninkii gabadhii wuu guursaday, ilaahay caruur fiican uu ka siiyey, wanaagsan uu ka siiyey, gabdho u badan. ninkii wuxuu dhibsaday marka gabdhahaas badan uu dhibsaday. xaaskiisa wuxuu saaray marka pressure, culays iyo dhib, iyadoon waxba ku sameeynin. gabdhaha banaanka maysan kaysanin. waxaa adiga ka imaado unbay gabdhaha ka imaadeen. gabdhaha ninka manida ka imaato unbay ka imaadeen. gabadha waxaa ukun unbay haysaa, ukun leewaay. wixii kaa yimaado unbaa wiil noqonaya, gabarna noqonaya, oo ilaahay qadaray suu ilaahay rabana noqonaya. marka dulmi ma lahan. ninkan jaahilka marka wuxuu bilaabay xaaskiisa inuu ku xadgudbo, dulmiyo, bimujarad inaha umulbanaat waaye, gabdhee dhaldhashaa. maxaa dhacay kadib? caruurtii soo weynaatay. ninkan xaaskii dumar kale guursaday, mid kale guursaday. almuhim tan oo koobaad oo gabdhahaas u dhashay dulmi iyo dhibaato ku haaya. waa la soo weynaaday, caruurtii waa soo weynaadeen. maalin maalmaha ka mid marka xaaskiisii koobaad waxaa ku dhacay wadna xanuuna ku dhacay. allahu aclam sababta wadnaha waa xanuunta ugu dhacday maxay tahay, ilaaha waa soo weynaadeen, caruurtii soo weynaatay. marka gabdhihii waa soo weynaadeen, hooyadooda inay ilaaliyaan ay bilaabeen. marka hooyada iyaga waxuu qabanaya, gabdhihii waa soo weynaadeen. gabdhi alxamdulilah gabdho wanaagsan waa ga dhigay. gabdhi u badnaa caruurta, hal wiil unbay leed, inta kale gabdhi ahaayeen. wiilkii wuxuu ka noqday ciyaal suuq. yes, wiilka ciyaal suuquu ka noqday, laakiin gabdhihii ilaahi subxaana watacaala wuu hagaajiyey. waa la soo weynaaday gabdhihii, alxamdulilah meel fiican qodan. hooyadii marka waxay noqotay qof sariir saaran ay noqotay. laakiin ninkii waxaas raxmad ma haba yaraatay. markuu ii sheegay su-aashan weydiiyey waxay ibni aadan ma ahayd, xayawaan ma ahayd? wallahi kalimadaasaan isticmaal, xayawaan ma ahayd, libaax ma ahayd aan ku dhahay. raxmad ma lehen miya? raxmad dhan kuguma jirin, wax ma dareemaynin. markaas qalbiga intuu jiray qof dhan oo ilmahaas qurxan kuu dhalay, oo nafteeda ku siisay, quruxdeeda soo qaadatay, iyadoo sariir saaran xataa bilooyin inaad soo salaami weysid xataa. what are you talking about? si u socotay ma raxmad ma lehen? intii maskax intii ka ciyaaraysay. almuhim ninkii marka wuu soo weynaaday. wiilkiisii weynaa ayuu, nin xoogo xoolo iskula, wiilkiisii weynaa ayuu wuxuu bilaabay marka in uu tijaarada iyo business kala soo qaybsay. wuu fashilmay, iskuulku ku fashilmay, waxbarashada uu ku fashilmay, meel walba faashil uu ku noqday. marka businesska inuu kasoo qaybgeliyo bilaabay. wiilkii marka ciyaal suuq caadi uu noqday. asxaab xun uu samaystay, drugs iyo khamradaas uu bartay. wuxuu go'aansaday marka maadaama wiilkaas keligiis uu kale, dumar badan uu soo guursaday, laakiin ilaahay wax kale ma siirin. waa qof la imtixaamayo, marka hore ibtiliisnaayo ahaa. waxaa dhacday marka waa wiilkii koobaad ayaa rabay gabaraa rabay in lagu daro. gabar uu keensaday, adig gabadhii aa lagu daray.
waxay rabta ku samayso say rabta oo la hadasho duqi wuxuu yiri marka wariyaa aniga hooyada saanaysaana ku sameyn jiray wuxuu yiri aabbo adiga hooyadii u dulminaysay uma dulmin kari gabadhan aniga saa hooyadii ku sameynaysa kuma sameynay المهم أبي وكل علي وكل علي فاينل وحكي المقال مسو دحقيني كرتيد أني حاسكي دحدين إذا أبي مرك هذا الوحكير أو لبسه أو كنحه وأويلك كليو كلها وحوي حواليه مديدي كري وحلا الوحو ربو سميان حاسكيسي وحي أوقاتنا أرنتا وحكسا وشي حتى بناك دورتي إمسلانتو عروري عنق أوري لادا لي مشيين عنق يدش لي مشيين عنق أووغو أها إنان سو أرك حتى وأوودي واي wuxuu yiri gabdhaheedii ayaa soo weynaadeen ay naftirkooda waa la soo doontay mida soo doontay wayga ka haystay gabadhii koobaad dilitaan iyo caay iyo dhibo isugu soo daray waa gabdhihii wanaagsanaa qurxana diinta laha hooyadooda gacanta ku hayay nina guursaday ninkii wuxuu isugu soo daray dilitaan iyo caay isugu soo daray maalmaha kamid ah marka wuxuu yiri gabadheeda ayaa soo waad waxay tir aabo heblo walaashi isbitaalkay joogtaa isbitaalka aaday gabadheedii weynooda waxaan arkay gacanta ka jaban tahay maxaasan ku galay hebelkii ninkeyga muxuu kugu sameeyay wuu idilay oo soo ku dilay oo idil fiirso wajigeeda habashii waa barbarsan yahay marka gacantu ka jibay anigu warada walaasheeda ka yar ayaa tir aabo habeen kasta wuu garsuuno ku garaacaybo ani habeen la joogay tir waa naxsuun inuu sidoo ku garaacay ninkii gabadha lahaa oo xaqabay gabadhiisa qabo u tagay markaas uu maxaa gabadh ninkii wuu la soo dagaalanay sida meel oday hawaalan baxiga soo dagaalanay baxiga tag ninkii gabadhiisa imaad guri gabadhu wuxuu yiri noo sayna u galaatid ma ahayn oo san ku sameeyay ma waa ka faro wixii aab waxba iga furan ana waa sabra hooyadii buu sabri jirtay hooyadiiba way sabri jirtay waxa ku sameeynayso arkay way sabri jirtay duqi gabadha hooyadii way sabri jirtay markii lagu yiri wuu naxay laakiin waqti aan waxba tareenin waay xaaskiisii oo dhowr sano guriga uusan ugu tagin ayuu guriga aaday gabar miskiin ah oo jirrada dilatay iyada dhan xataa caatowday isbedeshay sariirta saaran ayuu u tagay markuu u tagay gabadhii miskiinta ahayd iyadoo saas ah ay soo jeesatay waxay tiri see tahay bilowda inay la hadasho markuu arkay ninkii wuu naxay laakiin after what dulmi markuu soo galay kadib markuu qof soo dilay qalbigeeda uu dilay jismigeedii uu dilay maskaxdeeda uu dilay xanuun uu u keenay after what ninkii wuu soo baxay wuu yimid wuu kasoo tegay meeshii isagoo wareersan wiilkii saas waaye gabadhii saas waaye gabadhii kale waa la soo doontay way diiday waxay tiri ani ma rabin in aan guursado walaalkiina waa arkaa walaashiina waa arkaa nin kale ma rabi dhowr gabar kalena waa sii joogaan oo guursug ah tii labaad waa diidanta inay guursato tii kubaad dhibay ku nooshahay ninkii wiilka kubaad waa kaase wax allaale wuxuu sameeyay meel wax ka bilaabo garan waaye meel iska soo galo garan waaye maalmaha kamid wuxuu yiri waa iska baxay cishaan masaajid ku tukaday sheekha istaagay uu muxaadariinay maskaxdii meel kale jirtay wuxuu sheegay xataa ma ogeen waxa kaliya dhagteeda ku soo dhacay waxay ahayd oo yiri rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri ibn aadanka markuu dulmi galo dulmiyada qaarkooda adduunyo lagu tusaa dambiyada qaarkooda adduunyo lagu tusaa inta aakhira la gaaray waxa kamid ah qofka inuu dulmiyo xaaskiisa inuu dulmiyo maskaxdeeda ninka xaaskiisa markuu dulmiyo markuu yiri bay dhagteeda soo wareegsatay oo xaaskiisa inuu dulmiyo warsi wuxuu jiraan maxaan sameeyay markaas ninkii dhageysto wallahi wuxuu yiri ka inuu aniga hadlay amal sometimes muxaadarooyinka in la dhageysto aad u fiican tahay
ninka wuxuu yiri muxaadara suu sheekhooda hal mar waa qeyliyey waxaan sheegan garan waayey dadka dhan hal mar ila yaabay banaankan soo baxay oo anoo wareersana banaanka soo baxay kadib waxaan go'aansaday guriga inaan imaado habeenkii Ilaahay subxaanahu wa ta'aala bariyay salaadan tukaday alxamdulillaah kadibna waxaan go'aansaday inaan xaaskayga u imaado oon u soo noqdo wuxuu yiri icafi kan igu sameeyay waa ku bariyaa waa soo noqday Ilaahay dartiisa ya cafi ilmihii gabdhihii farxad aabahoodii caawa la jiifo waxay u noqotay shay qariib ah waa farxeen hooyadii la hadleen habeenkii waa subax waa la wada quraacday wuxuu yiri quraac iga weligii ma cunin gabdhihii waa farxeen hooyadooda sariirta ku jirto soo kici jir maalintaas way soo kacday way soo fariisatay almihii markii dambe wuxuu yiri walaalow i cafi marka qisadeena intaas waaye ninkaas dulmiyey gabadhaas dulmiyey ilaahay jizaha siiyey intaasay ku eg tahay ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan u weydiinaa inuu u soo hanuuniyo wiilkiisa gabadhiisa ninka qabana u soo hanuuniyo qalbigoodan isu keeno ilaahay subxaanahu wa tacaalana xaaskaas waxaan u weydiinaa radulu ilaahay dartiisa idan inuu cafiso ilaahay u cafiy asigana cashri inay u noqoto qisan walaal intaasay ku eg tahay faa'iidooyin badan ay leedahay waqtigaa naga dhammaaday saan u jeedo faa'iidooyin aad u badan ay leedahay waa jeclaa lahay faa'iida inaan sheego wallaahi faa'iidooyin aad u badan ay leedahay laakiin waqtigaa dhammaaday 10 daqiiqo ka badan had weeyay marka faa'iidooyinka idin diina soo qor khayr Allah idin siiyo jazaakumullahu khayran barakallahu fiikum ilaah darsiin jeclahay waa inuu jimcaha soo socoto iyo qiso kale oo cusub oo aad u qiimo badan ilaa jimcaha soo socota laga gaaray waxaa laga rabaa qisada inaad dhageysatid si fiican aaga faa'iideysatid عبرة واي فقصص القصص لعلهم يتفكرون ما حكوا له باهينا كعمل فشي ولا لها كان وجود بسيط خير الله كسير جزاكم الله خير بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.